bulshooyinka ku dhaqan magaalada Xeebta Berbera maanta waxay muujiyeen dareenkooda ku aadan heshiiska shirkadda DP World iyo dawladda Itoobiya ay la gashay xukuumadda Soomaaliland. boqolaal dadweynaha oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo qaaday jidadka waxayna ku dhawaaqayeen hal ku dhig ay ku taageerayaan heshiiskaasi. Intaasi kadib waxa ay bulshadan isugu soo ururtay fagaraha 26 Juun halkaas oo ay kala hadleen mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ay ka mid ahaayeen xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikariim Aadan Cadde, gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed, wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland. dadweynaha hadaba halkan isugu yimaayeen saaka wajidooda waxaad ka dheehanaysay gadood xoogan oo ku aadan hadallada ka soo yeedhay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maadaama dabcadda laga galay heshiisku ay Berbera tahay reer Berbera farxad weyn bay u tahay, guulna way u tahay, waana bilowgii horumarka dalkan ee dawladda Farmaajo fariin ku furan waa loo gudbiyey. Soomaaliland waa qaran dhisan, waa dawlad dhisan, waa shacab iyo dawlad dhamaystiran. dawladda taagta daran ee xamar joogtaa waxa inoogu filan Farmaajo iyo kubsi iyo ciidan shisheeye ayuu keenay xamar. innagana madaxweyneheen wuxuu keenaa maalgashi iyo horumar, laba la isbeeldhiga maaha. waxaan runtii maanta Soomaaliland gaadhay inay ka hadasho horumarka muddada soo socda ee dhallinyaradeenna. tani waxay ugu tusaale u tahay maanta waxaynu ka fakeraynaa 10 sano ee soo socda, 20 sano ee soo socda. ummadda Soomaaliland ama jamhuuriyadda Soomaaliland cidnaba ku gafi mayso, cidnaba baadil ku dooran mayso, laakiin ciddii ku soo xadgudubta ee maanta looga warwari maayo jawaabta ay siin doonto. aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay heshiiskaa saddex geesoodka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland maanta la soo gashay dawladda Imaaraadka iyo dawladda Itoobiya. dareenkiina iyo shucuurtiina ku muujinaysaan qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay muqaddas, sidoo kalena idinku taageeraysaan heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ka dhaxeeyay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. qarannimada Soomaaliland iyo jiritaanka Soomaaliland waa laba taabtaan. reer Berbera waxa leeyahay dadkii ku dayasho reer gobolada dhan inay ku daydaan. marka loo eego qarannimada dibtii loo soo maray dibicna noqon mayso. dalkan dhiig baa loo shubay, hooyaa ku dhimatay, carruur baa ku goblatay, inamaa ku dhintay. inagu maanta waxaynu u baahannahay keliya inaynu ciidda isku soo taagno oo shucuurteena muujinno. aad iyo aad baad mahadsantihiin. haddii ka tag weydana waxaynu diyaar u noqonaynaa wasiirila madaxweyne inaynu koriga qaadan doono oo qaranka difaaci doonaa. amuurtan ayaan hadaba la saadaalin karin halka ay saldhigi doonto. waa Cabdirashiid Mubaarak Cabdirashiid Sool, telefishinka caalamiga Soomaali Cable, Berbera.